السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي قروح بدنيد النوسو دويسين أنا وقتي إلى الصعدة أنا وأهم شرحشين علي وأني كم هاد علينا إياه ولو أشيلن كيجيب كيجو نوسو دويسين هذا ناس يصبح قروح بدنا النوسو دويسين وحيق نوجي وكم هاد علينا أنت عمرك لقى صوت تقو إنسان للصعدة قربي واحد ماضي قدار والبعوسير بعد جوجه قف يدب كامدولة ولا درية ubadkii Soomaaliyeed waxna jeel baa la dhigay waxna waa la guranayaa oo hooyooyinkoodii aabahooda dawladaha ka guranaya wadankii Mareykanka ahaa baaxadulha ogeydeen waxay doorteen in la yiraahdo Trump oo doqora oo xataa garan waayay dadka Soomaaliyeed dagaal suuqay ku jiraan oo ballan qaaday dadkii Soomaaliyeed oo dhan inuu soo celinayo taasi waxay sababtay dadkii Soomaalida ahaa ee Mareykanka ku noolaa inay noqdaan dad cabsi ku noola oo ilaahay haduu ku yidmahayo wadnaha farta ku haya qof walba leeyahay goor ma lagu celinayaa anigu waxaan noqday nin maxaan ku raadayay hawlgab ah waa ii cuntami weyday dalka Mareykanka oo dhul gaala ah in lagu aaso halka maartay aan hawlgab ku noqdo maskaxdeeda iyo murqayga oo guriga cidla ay ku dumaan waxaan go'aansaday intaan Trump isoo tuurin inaan anigu iska soo tago dadkayga iyo dalkayga Soomaaliyeed u imaado khaasatan reer Puntland iyaga wax la qabo intii guri cidla ah stress iyo daqad ugu dil lahaa oo darxumo u dhiman lahaana iyagu ay rogrogtaan hadii wax la iga dhaxlayana ay iyagu iga dhaxlaan waxaan kaloo ka war helay in jagadii madaxweynaha Puntland ay banaan tahay oo arrintan cid inay shaqeysa waa arrimaha keenay inaan soo degdegay kamid tahay waxaan doonayaa oo halka kaga dhawaaqaya inaan musharaxahay oo ballan qaadayo inaan idinka shaqeysanayo idinna shaqeyn doono hadii la idinka dhigo oo adeegyo badan aan idin qaban doono hadii la idinka dhigo marka musharax baan ahay doorashadan galaya istaahil baan ahay 30 sano Mareykanka soo shaqeynayay shaqo nooc walba waa soo qabtay nin odayaan ahay maanta de waxa weeye inaan wax idin wanaajiyo ma aha nin lagu tumayo inuu wax ka kharibo marna mihi anigu oday baan ahay waxa weeye dadkaygi baa tihiin codka in asiisaan waa idinka codsanaya nin oday ah oo waxa weeye hadda soo dhacay halku dhigna waxa ay ah waayeen hadda soo kuday marka wixii su'aalaha qabtaan dadka sharafta leh soo dhaweeyay inkoo anigu bahalkaynayn dhabarkaas xooga maartay fadhiga ay diba marka wixii su'aalaha qabtaan ii bobsiya hadii sida uu dhagayara culus ah codka kor loo qaado marka soo dhawaada yaa su'aala qaba ninkaaga caatada ka u dhiiba mikrofoonka ka caatada u dhiiba mudane musharax cabdiwali cali gaas doorashada faragelin badan buu ku hayaa madaxweynaha hadda baarlamaanka isaga soo xulanaya marka hadii uu mar kale guuleysto ma aqbali doontaa natiijada doorashada adeer ayaan daro weeye gaas doorashada kuma shuban karo mar kalena lama dooran karo kaligii cuna weeye waa ninkaas waxa weeye sabab loo doortaana ma jirto 4 sano halka joogay wuxuu cuni karay waa cunay wuxuu dhisan karay waa dhistay makaligiisa dalka u tahriibay makaligiisa u dhoofay annagiiba maanta nimi waxa weeye annaga ilaahay noo qorin yaa dekada boosasay inaan maanta ka shaqeysano wali laba dhagax ma saarin isaga waxa la sheegayaa 4 guri inuu dhistay anigu 30 sano aan maqnaa oo dibadda jiray guri kiraan intii ku jiray maanta istaahil baan u arkaa inaa ii dhibtaan inaa inii shaqeeyo oo in ka shaqeysto oo guri iyo soo shan buu dhistaano mid kale in ka dhisto saasaan maanta doonaya cabdiwali waa ninka kari waayay war dadkii Mareykanka kaga timi oo akhyaarta lahaa hadii ilaahay meel fiican ku maartay jabi adiga oo dad maxaa ku raad xoolo wata ilaahay ku sakhray inaad dadka tigra u dirto oo waqtiyada samarka ay maartay soo hawo bedeshaan ninka inta kari waayay sabab marka loo doortaa ma jirto marka cabdiwali baa la dooranayaa taa ma maqli karo aniga kaaga ishala si ka mikrofoonka ishala waxa su'aal qabta adeer musharax wadanka abaaro badan baa ka dhacay dadka intooda badan gaajo iyo haraad bay u dhintaan calala hadii lagu doorto maxaa kaaga qorshe macaluusha wadanka ka jirta iyo biyo la'aanta iyo dadka nafaqa darrada iyo gaajada marka qaar kood u dhimanaya
adeer su'aal muhiim ah weeye su'aal muhiim ah su'aasha ay weydiisay weeye waxa weeye gaajo waddanka inay ka jirto macluul ka jirto tiifiyadan ka arkay ayaan daro weeye 30 sano aan waxaan ka shaqaynayay restaurant maqaaxi la yiraahdo McDonald ba 30 sano ka shaqaynayay McDonald waa hal maqaaxi hal nin baale 200 milyan baan maartay u adeegi jirnay maalintii oo cunto siin jirnay oo quudin jirnay Puntland oo 2 milyan ku nooshahay in maalin kasta la dhaho waa gaajoonaya waa wax laga naxo weeye hal restaurant ba inii furaya McDonald oo kala inii furaya qof walba labadiisa xabad oo dhiga koobkiisa shaaha xabad sharaabka ba miiska loo dhigaya inuu dadka ka hunguri weyntiin teeda kale aad waxa la doonaya hay'adda saadaasha Puntland oo maartay inay sii sheegto xilliyada abaartu jirto oo maartay ay jirto maartay inay sii sheegto oo sataladyadu ay noo sii degaan si xilliyada abaaraha aan kayd fiican u dhigano ya adeer oo Puntland hay'ad haddaysan lahayn oo berri ina kuleel tahay ina qabow tahay ma kala garan kartaan miya in roob da'aya iyo inuu maartay baraf da'aya ma kala ogidin miya naga daaya hadda hay'adana sameynayna waa hay'adda muhiim weeye dunida waxyaabaha ku shaqeysa ka mid tahay adeer waxa weeye way sii sheegaysaa sataladyada sii sheega marka abaaro xilliga jiraan raashin badan dhigan doona marka saas weeye gaajada ma jirto maqaaxiba gabiina waxa leen ka siinaya 200 milyan wax soo siin jiray way taraan qof walba miiska u dhigi jiray isagoo qalacsan oo iga tagi jiray marka adeer waa gaajada ma jiri doonto insha Allah ka ilka jaban ka u dhig mikrofoonka mudane nin la yiraahdo Muuse Bixi madaxweynaha Somaliland wuxuu sheegay inuu qabsanayo magaalada Garowe haddana duleedkeedu jooga meeshii tuqaraqahay dagaaladii ka dhacay waa la socotaa Somaliland ba hadda haysata gobolkii Sool wali gacanta Puntland waa ka maqan yahay haddii lagu doorto gobolkaas sidee u soo celinaysaa maxaa kaaga qorshaha xoreynta gobolka Sool adeer waxa weeye horta Sool yaa laga xoreeya dhulbaanta isaga dhulkiisa haysta ma dhulbaanta la kala xoreynaya waa may weey dhulbaanta waxa weeye midaysan anagu saan taariikh ku hayno Ingiriis buu digada ka dhigay doorna duhur cad buu duwan karaa marka dhulbaanta isaga dalka iska haysta sabab maxaan ku raadto qaraq ay ciyaal inoo ka dhintaan anagu ma jirto waxaan sameeynaa hadii ilaahay ku idmahayo hadii la doorto waxa weeye ciidamada Mareykanka qaarka u shaqeeyay TV-dan ka daawan jiray ciidanka Puntland furinta hore geeymiyo aniga dhulbaantan abaabulaya haday iyagu dad iska dhicinayeen ka bacdi ciidanka cirka Puntland air support baan siinayna duqayn baan sameeynaa maartay ciidamada maartay Somaliland waa hawada ka garaacayna iyaguna infantry ahaan haw galeen laakiin ma ogoli in maartay front line-ka wiilasheena ku dhintaan ma jirteen halka ma jecel aniga waa arintaasi waa micna daro tukaraqa waxa weeye gaasa dadka hadda ku laayay sabab meel cid la maartay oo dadkii laha haysto inta nooga dhimato ma garan karo adeer ya wari Puntland ciidan urma leh maandhow waxyaabaha balanqaadyada waaweyn oo halka nooga sheegayso oo ciidanka ciri leh oo adduunyada kale leh oo dabaabadaha leh maandhow xagee ka keenaysaa dalka qoriga ka ahaa waa la laayahay نصيب دروين كده عكمل تاي سيبسن بطلان عيدا عيرو لهين سيبسن بطلان عيدا عيرو لهين الدنيا ده وحوي عيدا كعير كنا نمبر 1 ويه مركا حتى أنا فيرست بريورتي هانا يا أنا واحد لها عيدا عير حتى هدايسن بطلان ديالله عصب سو يبسن كوي ميجي سياب برا لقد حلي بقى وحكي يا لين بانسلها مركا شدام ملء هذا الروش كاسو كريستال دونا يوكرين طالع oo waxa ay caloosho shaqaystayaala laba xabo kana taa wuxuu ba soo kreenana laakiin anigu idin balan qaadimayo ciidan infantry ameesha ma gelinayo marka diyaaradahaas idin keen doona hadii la ka dhigo gabadha garoobta u dib maandhow saan la socoto dowladii federaalka faragelinteeda waa laga baqayaa doorashada ula booco ugu soo kutubayaan baa la yiri ninkii khayriyo farmaajo waxa weeye musharaxiinta qaar bay wataan baa la sheegay asaasa suuqa ku jirta marka maandhow arimahaasi walwal intee la eg bay kugu hayaan maxaa kaaga qorsho ah adeer dhigayso federaalku nama soo faragelin karo federaalku Puntland ma soo faragelin karo Soomaali federaal ay noqotay reer kasta xaafadiisa soo ilaashada la yiri xaafadina xaafad wuxuu u gudubto gardar weeye farmaajo anaga muxuu nagu darsaday maraxaan muxuu nagu darsaday galmudug mee noo qaateen Jubbaland noo qaateen meestan waxa weeye ma jirteen in lagu qurxiyaa degan marka waxa weeye dadkaas inama soo fargashan karaan murarsadana qof murarsada anaga habeen noo ma soo hoydo marka khayre wala farmaajo midna fargelin ka yeelmeeno waxa weeye anagu danahayga anaga ka shaqaysanayna fargelinta wuxuu ka qaba ma jirto hadee dhacdana waa iska dhicinayna Soomaali waxa ugu badisaa reer kasta inuu danaysa ilaashado dawlad dhexe oo awood leh ma doonayna anaga ma doonayno horaan noo ku kaday noo ku laayay waa ogeyd wixii naga soo maray
SSDF iyo waxyaabahay waa la socotaan marka ma jirto waxaas adeer ma jirto 30 sano waxa qurbay baday oo maanta anigoo maartay pension ay soo keen celiyay waxa weeye dawlad xoog loo Soomaaliyeed bay ahayd marka yeeli mayno hadii laadan ka dhigo intaas aan uga baxay waa su'aasha ugu dambeysay way adeer hay daalilin ay ka maartay qeyrad badan ka bodbooday ka maandho u dhibka la socotid musharax wadanka amni daro badan baa ka dhacday maamuladii Puntland soo maray waa ku guuldareysteen inay ciidamada dhisaan galgala waxa weeye argixisa joogta xaqii la oran jiray barigii Daacish baa laga sheegayaa ciidamadii daraawiishtu mushahar muddo badan ma qaadan booliis badani ma jiro maxaa kaaga qorshe ah dib u dhiska ciidamada oo aad dadka reer Puntland u ballan qaadi karaysa haddii ay ku doortaan inaad qaban doonto adeer ammaanku waa muhiim weeye ammaanku muhiim weeye wuxuu yahay priority kood biyaha ammaanka haddii ilaahay ka dhigo ammaanka si fiican uga shaqeynaya ammaanka maaragtay si fiican uga shaqeynaya adeer waa inay adeegi doona 8 jira khibradda ugu badan ammaankan ka leeyahay Mareykan dadka dariskayga ah taa igama soo caban intaan halka ku noolaa dad xataa isdilaya ma arkin marka ammaanka sida loo sugayo khibrad fiican u leeyahay hadii la ka dhigo waa sugi doona midda kaleeto adduunka hadda waxa jira waxa la yiraahdo deterrence baa jira wadanka hadaadan hub culus haysan Mareykan baa kugu soo degdegaya sida carabta lagu leynaya marka Puntland 20 sano jirta ilaa ay hadda ma maqal qumbulad nuclear tijaabse ma maqal sida Kuuriya gantaaladii hawada maartay qaadaha isoo gudbi jiray tuurtay ma maqal marka waxaan sameeynaa hadii la ka dhigo barnaamijka nuclearka Puntland waa dadajinayna muddo sanadka ugu horeysa tijaabada ugu horeyso maartay gantaalada hawada aan dirayna insha Allah kuwa qaarada isoo gudba Mareykanku halkiisa ku baqay insha Allah saasaan yeeleynaa 8 sanaan jira iska dhaaf Puntland noole ilaahay abuurtay oo Afrikaan ah oo nuclear iyo gantaalada qaaraha isoo gudba halka ka xustay ku hamiyay ma arkin ma Puntland oo labada gobol maanta waxa leedahay nuclear bay leedahay warka ma jiro Puntland meeshatan hubka ay sheegayso kuma hayso waligeed ma hindisin qorshaheeda ma gelin Soomaali weyn xataa ma soo hadal qaadin xaqee adigu ku maqnay ma waadan dalka la socon adeer waa wax laga naxooyay inaan Puntland barnaamijka nuclear ka lahayn sacaboolay tahay aaka waa waqtigii lagu dagaalamay jiray waxa ahayd 77kii waa laga soo gudbay maanta hadaadan hub weyn haysan oo meesha ku turto milyan ku dhimanayo bilaksta ku soo degdegaysa marka hadii ilaahay ka dhigo barnaamijka haddaan sameyn doona barnaamijka nuclear ka maalinta ugu horeyso la doorto baan saxiix doona hadii ilaahay ka dhigo saasaan loo balana